بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الله وإلهي مهدي هذا إنا نفرنه مؤتمر قبديس إن شاء الله وحكير هرية علماء ودعونا إنه هرفليان waxaad sugayseen oo su'aalo u badan yihiin ay aanu fadhino marka su'aasha horeysa ilaahay horta barbalama inaga bixiyo iyona ina badina marka su'aal oo ku saabsan su'aalaha barbalamka ah ayaanu ku bilaabaynaa sababta waxaanu aragnaa inay yihiin waxyaalaha degdeg iyo jawaab raba hadda gabadh bay leedahay hadalkii oo kooban ninkeeda ka cabanaysa waxa leedahay ninkaygu ilaah buu caaya diintana si joogto u caaya anigana wuxuu iga dhahaa waxa tahay qof saaniye ah hadda waanu kala maqanahay telefoonka iyo internetka iga soo caaya waalidkaygana iga soo caaya marka markaad dhageysataan in la oranaysid in kala dad maqashaan wax laga yaabaa in haddana laba jeer tirada in la raajicin marka horta qisad waxa weeyaan sida wax u qoran yihiin un baa loo dhigayaa wadaadkana sida wax loo su'aal u jawaaba marka waan jecelahay walaashaasi inay run sheegayso marka jawaabta sheekhu bixin doonay sida ay soo bandhigtay bay ku salaysan tahay waaqo cad uu ka duwan yahay wax qarinaysaa wax xalaal uga dhigi mayso taa horta waa la soconaysaa sida darteed waxay leedahay haddana way sii wadaa inta waxa uu dheer bay leedahay balwado aan la noolaan karin oo sida kamida khamri acabka iyo qaadka laba jeerna waan isfurnay marba isku kaya dhiman culimada Holland jooga qaar kamidii way dhex galeen marka iyada ah oo labadoodaba la wareystay waxaan kula talinay markaas yireen markii ugu dambeeyay oo marka dambaysa aysan jirin haaba isla qaateena waxa leedahay halkiiba arintii ku noqotay leedahay marka ninkaasi waxay leedahay maxaa sharcigu ka qabaa la joogistiisu ma banaan tahay ayay leedahay marka sheekh umul baan ku wareejinayaa insha Allah su'aashaasi waxay u tahay waan muudaj kalideed ma su'aalo badan oo lamida ayaa jira oo meeshan ka taagan marka jawaabta uu shaaqa ka bixiya taas uma kuwa kanada la mid noqon doonaan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد لبان وكل قاضي سايش meesha lagu sheegay iyo kiiska ama arinta qoyska saayish meesha lagu sheegay haday saas u jiraan ilaahay oo la caayo iyo malaa'igto la caayo iyo diinto la caayo waa gaalnimo iska cad markaas ruuxa diinta ka baxaya day dhacdana waa in islaamku dib ugu soo noqdo shahaadada dib loogu qabto adoo gabadh muslimada qabayna maadaama uu ridoobay way ka furmaysaa taasi waa cayda ilaahay iyo diinta iyo muqaddasaadka waaweyn rasuulka iyo malaa'igta oo raaxi ka dhacdo sameeya xukunkiisu waa nooca khamradu cabaa waa dambi gaalnimo sama gaarsiisan hadduusan xalaashanayn qaadku cunaa waa dambi weyn laakiin gaalnimo ma gaarsiisan hadduusan xalaashanayn uu yacaaya oo wuxuu yiraahdaa waad zinaysatay waa dambi weyn oo uu ku mudanayo in la xado hadduu ku sugnaado la jeedlo markii la cadeeyo kadib laakiin gaalnimo ma keeno isagana intaasoo dhanna xarigii labada ruux u dhaxeeyay saameyn kuma yeeshaan ee qoyska u dhaxeeyay waxa kaliya saameynta ku yeelan kara waa uun cayda diinta oo ridaya gaalnimo noqon karta ama inta kale waa dunuub ruuxa ka dhacaya oo waaweyn oo uusan gaaloobaynin oo bitaali reerkiisana uusan kaga furmaynin taa waa masaa'isha lagu sheegay su'aasha ama kayska qoyska ahaan sheekhu uu sheegay in horay loo galay
gabadhuna ay tiri arrintii way soo noqotay dacwadanna ay soo gudbisatay wadaadadii horay u galay ha galaan wixii ka jirana ha xaqiijiyaan wixii ilaahay waafajiyana ha ka yidhaahdaan ehelkoodana ha kaashadeen labada isqaba ehelkooda iyo odayaashoodana ha kaashadeen taa waa keeska reerka oo gabadha hadalkeeda waxba kuma dhisin umana fatwoonin inuu ninku ka furan yahay ama ay ka furanta maxaa yeelay arrimaha qoyska waa khusuumaad baa la yidhahdaa khusuumaadkana fataawi lagagama jawaabo abwaabta khusuumaadka waa ishaysi waa dad ishaysta waa khusuumaadka xaqiijin iyo baadhid iyo kabaaraandegid bay u baahan yihiin qadaa ama taxkiim ama ehelka ayay u baahantay marka culimada khayr allah siiyo siday horeyba ugu galeen hawsha ha u galeen waxna ha kale yidhaahdeen reerkaas wabillahi tawfiiq جزاك الله خيرا مسألة runtii way soo noqotaayo rag badan marmarsiye ka dhigtaan oo maadaama meel kasto la yimaado wadabdabad buu ku riixaya wadaadkiina maxkamad ma aha marka waa la isku dhiboon yahay waa taan rabno wadaadada insha Allah mustaqbalka soo socda culimada hadda inala joogayo kuwa kaleba inay ummadaha qurbaha ku nool dad cuqala ah oo bimasaabati xakameyn noqon kara loo sameeyo runtii waan raadinaa labada family waan raadinaa laakiin lama helo waxaan leenahay rag aabayaalkood ay yiraahdeen anagu wiilkaygu shaqo kuma leeyahay wixii maanta markaysa u galay marka arintaasi dhibteeda way taagan tahay insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala bal fududeey su'aal labaad baan sheekhu umad dib ugu celinaya culimada kale waxa aan yarkaydsanaya gabadhu waxay leedahay ninkaygu ma tukado ninka ma la noolaan karaa بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله أنتو أدي جرتوا وأدم بوين قال علماء كم إذا واحد قوان إنه قال لما وقارسيسين أدم بجاس قارن واحد ليهين معها وكسو كيساي وأندم عاصي دم بوين هو أدلة ده مرك الله في ريو علماء دي سلف كي إلى هذا مسألة ده لسكو خلاف سين هاي وأنا culimada sunnada dhexdooda baa mas'alada isku haya ani shakhsiyan daliil ahaan waxa ila xog badan inuu taariku salaadku gaal yahay daahirka quraanka iyo sunnada daahirkeeda iyo ijmaaci saxaabadu basaas waa laakiin aniga qaba macnaheeda ma soo afjarayo khilaafka mas'alada ku jira ama ana ila xog badan tahay khilaafka mas'alada ma soo afjarayo لكن نبينا وحى كسر صلوات ربي والسلام عليه إنه يري إسلام كجنتمه سجنتين بالله فريدانا جنتين تأجوه الرئيس الله فريدانا وحكمك يا دولة جنتين تأجود ضم بيس الله فريدانا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم معكم مغلى مركة روح هدو صلاة كتجي واحد دين إني سنو الله بنين حرق أجود ضم بيس يبقى أفرمي بس تاوى حق تاريخ صلاتك عدي مركا أي نقطة إنه مرتد كافر يهي ودين تكبحي قبل مسلمة ما قبي كرو وتكتا زي مسألة السودان نقطة واحد تاسي ومسألة سيقود يجواب تيودون سوق قابي لكن قبلنا يوحي الشيغان يحقيقين تيودو مسألة أباهم واي إن السيفي على الله حقيقيو maxaa yeelay waxaan ogsoonahay oo waaqica oo in badan soo martay in ay dumarku iyo raggu markay isku dhacaan si qiil loo helo waxyaaro badan la iska gudbiyo oo waa taariku salaad iyo waa saaxir iyo waa falfalow iyo balaay in la akhriyo hadduu markaad bahasha raad qaado salkeeda aad tagtana waxaad u tagaysaa wixii la sheegay wax ka gadis كلية مركا وداد با فتوى الشيخ أي فتوى إن كلا فرنا تاس بالغ يا با إن بدن أي دتك الرادينية هوري بسانو الشيء قضايات كقويسك مسائل الخصومات بالليل هذا باريس يكبران دق بيوباهن تهي كمسألة أهان لكن هداد ويديسين أو تارك الصلاة
gabadh muslimada ma qabi kara sida ila xoog badan wallahu a'lam ma qabi karo xaasna uma noqon karto wabillahi tawfiq جزاك الله خيرا هذا المدح كلين يس وصير وقت وفاة هذه السنة لكن هذا أنا لينك وان كبح دونا فقه كوري كنتونا لكن هل مسألة أو كلون يدنا ورق ليرة يعني صوغ قابلنا من شيخ أحمد إن شاء الله يسوي كذي سؤاشة نحكوا هو يهي قبل باوحي لا ده هاي نبان دين اسكو بورسني أبين كان جورج يسلتكني وحبان كوح كلون دين كسب سنة بان جورج وقتي deetana way ma sheegay waxyaalo sheegay soo deetana markii dambe meel laga soo noqday ma ahayn caruur baan isku dhalay markaan caruurtii isku dhalay kadib baan waxaan ku heshiinay inaynu saan caruurta u badbaadino inaan wax urursano oo wadankii ii celiyo isagoo halkan joogo iga soo biiro markaan lacagta ururna caruurtiina ay soo waweynaadeen ayuu yiri arrintaasi ma jirayso say waraqda ku qoran weeyii haddaad rabto inaad tagto orodoo jidhkaaga gado lacag badan baad heliye caruurtaadana ka hayso deetana caruurtii waa weynaadeen waxa uu bilaabay inuu annaga iyo caruurtiibana laayo caruurtii baa ashkataysay waa la xidhay ana u dacwiyey caruurtu waxay sheegayaan sax maahan idhi waa la soo daayey furina waa dhacay oo waa ka noqday haddana caruurtii waxay leedahay badda ay wada galeen way wada halaabeen sawarqada ku qoran weeyi annagiina waan isku dhownahay inuu ifurana waa diidan yahay mana ku noolin ee waana la kala kaxeeyay oo laba guri baan ku kala noolahay marka arinta xal ma la iiga helayaa bay leedahay diinta Sheekh Ahmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم يعني أما بعد وحكستو دع الدين تحل وأولاده هاي لكن سيدة علماء مروا بأي شيئين قضايات كانوا كلو حباهيهين داد قضاة وأرميه بارا قفل بالدعاوي أيو شيئين ومركز وحي كالقوي وإلا كل شيء كسدين تحلو كله لكن حلك يا قويني دد اسكا أفراده مقوي كران هدي أيسان هذا دولة جرينا هدي أذنك اللي ينكهيلي كرا علماء يرق خيارها اسكال ميسته أو كيمونيتي أو دولة كسر ميسته إن وحي دباتوين كاسو كلا أو شرعي ayaga ay maartay xalli karaan loo ogolaado dadka hadda waa idin kala xalli karaan arrimahaas oo kale laakiin janta fagax waxay dhahaan dad iska kala yaacayo meel ay ku tirsin meel ay ka tirsin aqoon da culimana wax ma qaba karto cid kan wax ma qaba karto si hadda loogu iftoodana lama yaqaan marka waxay la tahay meeshii dad culimo قضاض يكجران أنا أرنتها سوى دعوته كل هذا خلط أديك لهذا سببته مركي أركتي وحق الله عن وحارب إن بريك النقطة وتكعرته وذا المستقبل مذو هذا قعنت للجلين مركا هذا هدي أي دعذي أرنتاس إن شاء الله تعالى تذكر كوميونيتي وماش جوي كحرنتها سوى وقفتها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنكب بالله بين دعاء كوجهن ويل ولالكنا رجع كامرد لشخينا يا وها رجي ما رتي إلهي درتينو لشخينا إنه مؤتمر كان دعوة ما تنوساليه يسيد بث كان مباشر كي الأركي عالم كان الله يكالم يسنيو ويل كايا وحكود عي حد السيارة لوجهنا ما رتي سحب وما رتي ودعوة مي حتى إلا محجية كدعوة مي مركا وحن علماء سيبا والشيخ laga soo dalbaday inuu ninka u duceeyo su'aasha labaad ee sheekha raacsan waxay tahay war ku daba qaban ba isla markiiba sheekh waxay weydiisanayaan walaalaha khaaska ah ilaahay dartii baan ku jecelnahay cilmigaaga iyo cimrigaagana ilaahay raagay bay ku leeyihiin
kadibna waxay ku weydiinayaan talow sheekhu sanadda ma noo soo laaban kartaa hadduu ilaahay cimri dheer ku siiyo. بسم الله الرحمن الرحيم. horta ninka walaalkeena allah caafiyo, ilaahay tabaaraka watacaala caafimaad allah siiyo, jabkiisana allah kabo, ilaahayna ajir ha ka siiyo, ilaahay tabaaraka watacaala caafimaad degdeg ha siiyo, sabirkan allah waafajiyo. nabigu wuxuu dhihi jiray tuhuur laa ba's, yani insha allah dambi dhaaf ilaahay ha uga dhigo tabaaraka watacaala, caafimaad degdegana allah usoo dedejiyo, isaga iyo inta muslimiinta ee dhimanba ilaahay dhibaatada ha ka qaado. midda labaadna culimadoo dhan baynu wada jecel lahay, allah tabaaraka watacaala idin jeclaado. muxuu ahay nin culimadii ka mid ah waxaa la yidhi waan ku jeclahay buu ku yidhi nin, waxa ii qorsoon haddaad ogaan lahayd imaada jeclaateen buu. yaa waxa ii qarsoonay aniga ilaahay aan isla ogna haddaad ogaan lahayd maada ii jeclaateen buu, waad ineclahay ilaahay dartii waad ii neclahayd. marka ilaahay ceebtana ha asturo. wixii dambena insha allahu tacaala waqtigeeda unbay leedahay haddii alla idmo. haddaana idiin imaanina culimo idinku filan baa joogta, haddii kan shan la helana khayr iyo barako weeye, haddii kalena dee culimo iga daaweyn oo iga aqoon badanoo iga waayo aragsan baa jooga. jazaakum allahu khayr. jazaaka allah sheekh khayr. sheekhu saa'iladan waxay leedahay waa sheekh umale, waxaan isguursanay wiil jooga Afrika, aniga waxaan joogaa halkan. marka hore heshiis ayaan ku ahayn, kadibna way noqon weysay inuu soo baxo. aniga hadduu yidhaho nolosheeda ka soo tag, ma qasbanahay inaan u laabto mise dembigayga muxuu yahay? بسم الله الرحمن الرحيم. gabadha haddii guur sax la guursado oo ay nin yeelato, waalidkeed siiyo, si saxa loogu guuriyo, xariggu uu sax yahay, xuquuqdii uu ninku xaaskiisa ku lahaa baa lagu yeelanaya. xuquuqdana waxaa ka mid a oo ugu muhiimsan inay ateecdo amarkiisa. sidaas daraaddeed meeshii uu ku dhaqanayo ee uu kula noolaanayo ee ay ku wada noolaanayaan ee uu ugu yeedho waa inay ugu tagto. sharcan waa sidaas weeye, haddii sharci ahaan la weydiiyo waa sidaas weeye, waa laazim inay ogolaato inay u tagto. haddii wax macsiya markaa uusan faraynin oo ay tahay xuquuqdiisii iyo ii imow iyo kaal ayaan wada noolaanno, maadaama ay xaaskiisii tahay ha u tagto, laazim bay ku tahay inay amarkiisa yeesho. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا شيخ. وشيخ السؤال كله حكم كموسيقى يسخر حنت الدمرك maxay ka tiri diinta islaamka bay ku leedahay gabadha sheekh? waa tii u dambeysay waan insha Allah taala. ama muusiga waa xaraan ayada hadal male, oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam axaadiistiisa ku cadahay. waxaana ku sugan xadiidka fi saxiix al-Bukhari inay imaan doonaan dad xalaashan doona macaazifta oo ah aalaatu lahwiga, waxyaalahan la tuumo waxaan lagu ciyaaro, dad xalaashan doona imaan doona buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. akhiru zamaanka sidoo kale dad dhulka lala goyn doono oo samada khasfi muxuu ahaayey qadfi lagaga soo tuuri doono oo waxaa jira yani wax weeyaan dhib badan iyo cuquubo la kulmi doona oo nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay heesaha iyo muusiga iyo waxa banaysteen. masaladaasi marka culimadii salafka ridwaanullaahi calayhim iyo muxuu ahaayey muxaqiqiinta way iska caddahay waa xaaraan. bal culimadii salafku waxay ku fasiri jireen aayadda quraanka wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiith liyudilla can sabiili illah. dadka waxaa ka mid a qaar yani warka ama hadalka kiisa lagu baashaalo iibsanaya oo qaadanaya. lahwa alxadiithka culimadii salafku waxay ku fasireen heesaha
iyo waxyaabaha la garaaco iyo muusiga iyo wax marka waa xaraan bal waxay leeyihiin qalbiga waxa ay ka soo saaraan ama xunuujin qalbiga ay yaani wax way ka bixiyaan waxa la yiraahdo munaafiqnimada sida biyaha roobku ay dhulka daaqa uga soo saaraan bay munaafiqnimo qalbiga u saarto macna way ka bixisaa maaha laakiin yaani qalbigay ku tarantaa sida biyuhu ay dooga u soo saaraan oo kale marka munaafiqnimo dikrigii iyo quraankii inaad macaansatay ku diidaysa markay heesaha dhagtaadii qalbigaaga iyo muusigu ku bato qalbi madoobaad baa kugu dhacay ilaan quraan shaydaan baad dhageysanaysa quraankii saxda marka dhadhankiisa iyo macaankiisa baad waayaysa marka taas waa aafatul casri waa aafatul casri way in la iska fogeeyo oo laga durko oo laga marmaan su'aasha labaad oo ah isqurxinta dumarka asalkeedu waa banaayay asalka waa banaayay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay jinsiga latiifka ah jinsi yaraantaba qurux ku koro waa isqurxinta ku koro waa aw man yunashau fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin yani xilyada iyo isqurxintaas ay ku koraan saas daraadeed baa waxa loogu ogolaaday dumarka waxyaalo fara badan oo ragga loo ogoleen dahabka loo ogolaaday oo ragga loo ogoleen xariirta loo ogolaaday oo ragga loo ogoleen يعني waxyaabo badan oo marka isku qurxin karaan baa loo ogolay laakiin isqurxintu waa inay xuduudda shariicada ayna ka bixin bimaana waxyaabo shariicadu diiday baa jira oo lacnadii ku soo aroortay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka qaar koodna isqurxin u qaadanayaan ilaahay abuurkiisa inaad basdasho oo midabkaaga badasho taqyiir khalqi ilaahi way isqurxin ma taas inaad timahan muxuu ahaa indhaha ka koreeya maxaa la yiraahdaa suuniyo miyaa inaad qorto dhinacyaha intay ka qorto ay yani dhuubto waa nooc ziina loo yaqaan laakiin waa muharram sharcan lacnad baa ku soo aroortay inay ilkaha intay qorto fanax ay samaysato oo ilkaha dhuubto ayadana lacnad baa ku soo aroortay waa xaraan in jidhka midabkiisa la bedelo oo midab kale lagu tallaalo washiga ayadana waa xaraan lacnad baa ku soo aroortay marka ziinada gabadha muslimadda ah waa inay kan iscadaynta kan sheegay way macna jidhka inaad bedesho oo midabka bedesho oo waxyaalahan hadda kiimikada la ismariyo gabadhu inta ismariso wada cadaato iyadoo dhan wada cadaato imtixaan jira waa gabdhihii Soomaalida ee maariinka lahayd ee madowga lahayd ee casiinka lahayd kulli wada cadi imtixaan jira waa sun waa jidhka dhibka uu u geysanaya ka badan iyo caafimaad darrada ka dhalanaysa marka waxyaabahaas oo dhan waa ziino ay shariicadu xarimtay waa ziinana shariicada ogolaatay sida cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaalaha kaleba shariicadu qaarna u ogolaatay qaarna u diiday dhibka ku jira daraadeed ayaa ziinaduna la mid marka wixii shariicadu u ogolaatayna gabadhu ha qaadato wixii shariicadu u diidayna ha iska ilaaliso wabillahi tawfiiq sheekh ilaahay waxaan kaga baryaynaa jawaabtaas waafiga inuu ilaahay miisaanaadka xasanaadkiisa u saaro su-aashan waxay ku socotaa insha allah tacaala sheekh axmed daahir sheekh sa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan aniga iyo gabar muslimada ku heshiinay inaan isguursano ninkan wuxuu leeyahay aniga iyo gabar muslimada waxaan ku heshiinay inaan isguursano waxaan u yeernay wadaad iyo labo markhaati ah wax xiriir lama aan samayn waalidkii gabadha dhalay laakiin ma aynan joogin magaaladaas guurkaas ma ansax baa waa su'aasha koowaad ka socota labaad wuxuu ku leeyahay haddaan rabo inaan furo xaaska laakiin ma awoodo inaan siiyo meherkeeda maxaan sameeyaa oo maxaan yeelaa waa ila tali waa tan saddexaad fadlan sheekh waxaan dareemayaa buu leeyahay markaa labada arrin dartood mashaakil iyo cariiri haddii waxaan rabaa ilaahay in lii bari lii soo duceeyo taa ka jawaab sheekhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ما بعد اولا سيده صحيحه وعلماء اهل الحديث كاي قبان امام الشافعي او امام يحيى قرانك يا حديثا اي كتسنيسو انه لا نكاح الا بولي ولي ايضا لا يضمن انه سنكاح جل
haddii uu maqan yahay hadda muwaasalaadka fudiin iyo xiriirka haddii lala xiriiri karo markaas waa in lala xiriiro haddaba xiriirkii suuro geli waayo dadka ama xigtadooda ama culimmada maraakiska joogto lagu kalsoon yahay qofku markaas waa u tegi karaa guurkiina u baahan yihiin marka hadda hadday isguursadeen waalidkii haddii ay la xiriireen oo arrintaas ay ijaazeeyeen ay dhahaan waa waafaqsanna arrintaas waa okay waay haddii iyagu dhaqan ay iska rabaan haddii aan waalidkii weli aan tawfiiq laga helin amaba lala xiriiri waayo oo la waayo nikaaxaas in dadka culummada iyo akhyaarta la ishhaadiyo waaye saasoo marka uu maadaama ay cudurtowday weligii in lala xiriiro marka haddee daruuraa timid hadda wuxuu yidhi midda kale su-aasha kale haddaan rabo inaan furo meherna aan waayo ma furi karaa laba mid waa samayn kartaa hadday iyadu furiinka dalbanayso inaad khuluc ahaan ugu khulucdoo tiraadid meherkayga ii dhaaf anigana waa iska sii dayna ama wax aad sidoo hore haddii aysan yeelaynin meherka dayn waa noqon karaa inaad maaragtay haddaadan markaas haynin dimadaada iyo dushaaduu saaran yahay hadduu dhaqankii meeshiran waa iska furi kartaa hadhow ama waa u soo deyman kartaa ama waxa ugu horeeyoo hesho waa xuquuq ay kugu leedahay wey adiga dimadaada iyo korkaaga lagu leeyahay maalintaad hesho ayaad gabdhaha faraha ka saaraysa muxuu kaloo dhahay mashaqadan sida sharciga ah waafajiyo isagu waa tafaasiishaas ay weligii halaa isku day inuu la xiriiro oo arrinta ijaazeeyo hadduu ijaazeyn waayo oo welidkii ijaazeyn waayo ha isaga tago markaas talaaqun ha isaga furo hadduu ijaazeeyo waa okay haddii weli lasii maqan yahay culummada akhyaarta u keen axwaashii ha baareen markaas guurkaas insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa guur daruuro ka dhacay culummadu markaas ay iyagu ansixiyaan ay ogaadaan arrintaa weliga la xiriirkiisa inay mutacadir ay tahay insha allah culummadana waa xaqay u leeyihiin inay tacliiqiyaan haddaan wax ka gafay mashaakilkaasna allaha kaa bixi laakiin sida sharciga uga baxay culummada waxay tacliiqinaa insha allah طيب شيخ ولي بالكاس كدرنا هذيك وكسوقتا شيخ هذيك وكسوقتا aniga hal qodob baan sheekh raacin lahaa waa intuu sheekhu sheegay laakiin meesha waxa baraarujin lahaa gabdhaha waxaydan kari karin aad ku meherinaysaan iska daaya khaladka dhan wuxuu ka socdaa adoo faqiir ah oo miskiin ah oon heli karin ayaad leedahay iska meheri maxaa ka wadaadi yacni waxaan ku soconnaa nidaamkii ahaa beenna waa lagu soo xirogeliyaa runna waa lagu dhaqaa soo saas maaha tii baan weli dabada haynaa waxaadan kari karin ha ogolaanin kumayaal iyo 10,000 iyo waxbaa la wadaa meherkii waa qaaliyoobay waa tegey fuqaradii waa guursan la'yihiin mushkiladii khaliijka ka dhacday baa inugu soo socota soo garan marka yaan lagaaga faa'iideysanin duruufta ku haysatee insha allah mid intaada kugu ogol baad heli inta tabartaada taagno insha allah taala جزاه الله خير علماءنا خالقة إلهي وحن كبرينا جوابتا نسيان إنه إلهي ميزانات حسنات كتوصارو سؤال كلا جرتو أو صونا خنقتي إذا دتك بدأ سؤال شو ديبت جوابته وضمت اسمه أيان شيخ أبودي ويا إن شاء الله أنا وربا أيام مدو أنجوجا balse markii aan wadanka isku dhiibayay ee gaaladan been ma u sheegay meeshaan ka yimid been baan ka sheegay qabiilkaygii aan ka dhashay been baan ka sheegay sidaa darteed sharci baan helo wadankii waan deganay hadda waxaan kasbanayo ma xalaal baa mise waa xaaraan su-aasha koowaad tan kale ma sadaqaysan karaya ma ka xajin karaya marka noloshayda ma sixi karaya oo maxaa igu haboon waa su'aal ay dad badan soo celceliyeen jazaakum allah khayr culimada jawaab naga siiyo
بسم الله الرحمن الرحيم horta qofkaasi dadka dhan uu ka tarjumaya la tahay dadka dhan ayuu ka tarjumaya meeshan wixii lagu yimid ilaaha yaqaan xal la og marka arrimahaasna hadda xal lagama gaari karo waa midoo hadda waraaqihii haddii aad qaadato intaad tiraahdo runaan sheegaa waraaqihii ma soo celinayso beenaala lugtaa lagu leeyahay gaaladuna ayagoo og inay wada beenaalo yihiin laakiin mar hadday beento ay adigu caddaysato waxaa weeye waa khalaas wey marka hadda meeshan awalba xalaal laguma imaanin waa dhega adayg wax lagu joogaa soo maa intii aad ka meel gaaraysaan oo intaad waddankan isaga baxdaan oo guryihiinni tagtaan waxoo dhan baa iska tuuraysaan waxaa waaye laa tasaluu can ashaa tubda lakum tasuukum hadda tan wax lagama qaban boqol hadda jawaabood waa xaraam haddii la yidhaah wax hadda laga qaban karo lama arko marka su-aalahaas oo kale isku baarbaarinina culimmadan ha ixraajinin oo hadday yidhaahdaan ka taga ma yeelaysaan marka hore ha imaanin oo culimmadu yidhaahdeen waa diideen been ha sheeginina gabar maaragtay hooyadaa ha ku keenin waa naagtaa balaayo walaasha waa naagta ha ku keenin qof islaameed dumaashi waa naagta ha ku keenin waa diideen soo maaha hadda midda caloola ku tagta soo maaha maxaa ka weydiinaysaan marka qof walbaa soo isu habeyn lahaa ilaahay u cabsan lahaa qalad gale qofkii qalad galay soo isu habeyn lahaa uga toobad keeni lahaa sidii ugu sahla annagu darar ha isu soo jiida ma dhahayn qofkaan hadda khatartaas ku dhicina soo socdana haddaba runta ha iska sheego hadhow intii meel aan laga shalayn lahaa kii kaloo qaladkan ku dhacana sida u sixi lahaa ilaahay la ogyahay haddii u suurto gasho ha isku soxo haddii kale beenteeda iyo balaayadeedaba ha isaga dhaqaaqo waa ardullaahi waasica ha yidhaahdo soo maa kii hadda aan waxaas ku dhicin haddaba waa maqlaysaan xarajkaas waxaan shaqaystay ma beenay noqonayaan say noqonayaan waa u jeedaa qof hadda ku dhihi kara waa boqolkiiba waa xalaal oo culimaha kaaga jawaabi kara lama arko soo maa marka balaayo ha isku furfurinine qof walba dhibka ku haysta iyo qaladkaa samaysa haddaa ka takhallusi kartidna ka takhallus haddii kale qalbiga uga toobadkeen haddii kale oo wixii aad ka dhex bixi weyso kaba dhaqaaq qofkii soo socdoon haddaba ogow khuduurada meesha ku jirta ilaahay hana cafiyo dhammaan sal allah calaa maxamedin jazahu allah khayr sheekhna sheekh axmed daahir walaalayaal horta marka hore waxaan ku cudur daaranaynaa su-aalaha badan waa arkaysaan sidai u buuxan ilaa halkan waqtigaasna aad buu yaryahay marka waxaan isku dayayaa insha allah tacaala waxyaalaha ugu muhiimka ee maaragtay la taaban karo inaan kasoo bixbixiyo waxa ah dadka doonaya ducadana giddigooda insha allah culimada ayaan mar kaamil ka dalbanaynaa inay giddigan idin wada duceeyaan insha allah tacaala ummadda dhibtaysan sheekadan waxay ku socotaa sheekhana sheekh maxamed cabdi umal waxay daba socotaa darsi uu bixiyo ku saabsanaa dumarka gabadhan waxay leedahay sheekhu waxaa sheegtay ama ka hadashay doorka ay gabadha muslimadda ka leedahay islaamka marka waxaan doonaynaa inuu cadaysid oo halkaa ka sheegto sheekh adigoo markaa bidaliil cuskanayo gabadha muslimadda miyay naqan karaysaa madaxweyne waxay weydiinaya gabadhan miyaan naqan karaya bay ku leedahay wasiirad waxay kugu daraysatay saddexaad xildhibaan ma naqan karaya hadday ugu yartahayna marka sheekhu taa jawaab waafi aan naga sii jazaaka allah khayr بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay inaan dadka muslimkaana u sheego gabadha muslimadaana u sheego su-aalna aan ka dhigo madaxweynenimada iyo wasiirnimada iyo xubinka baarlamaan iyo guddoomiyaha gobol miisaanka shareecada marka la yidhaahdo ma sharaf baa mise waa takliif ma tashriif baa mise waa takliif ya waa takliif nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh
saxaabigii la dhihi jiray Abu Dharr cid ka run badan dhulka korkiisa ma joogin cid hadasho ugu run badnaa nin aad u cibaado badanna waa nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa ta'muranna cala اثnayn soo maahayn walaa tawallayanna maala yatiim laba ruux madaxa u noqonin agoon xoolaheedna mas-uul ha ka noqonin wuxuu ugu daray innii araaka daciifan saxaabadii kiraamka ahaa ee fadliga badnaa ee akhyaarta ahaa ayaa nebigu sal alla alay wasallam wuxuu leeyahay kursiga ha raadsanina iska daaya dhibkiisaa badan waa nadaamo waa dhib waa rafaad waa aakharo xumo meesha aan ku kala tegayna waxay tahay fikradda gabadhu su-aasha ka keentay waan fahmayaa meesha aan ku kala tegayna waxa weeyaan xadaarada ama fiqhiga ama aragtida islaamku waxay leedahay haddii la yidhaahdo gabadha muslimadda ama madax ma noqon karto bimacnaa macnaheedu ma aha xaqirid iyo sid ma aha laakiin takliif iyo culays baa laga durkiyey lagana fududeeyey nadrada gaalada iyo dadkan adduunya raaca baa waxay u arkaan kuraastu inay sharaf tahay ruuxii loo diidayna in la xaqiroo la yasay waa aragtida gaaladu ay dadka ka dhaadhicisay markay aragtidaa wax lagu dhiso oo falsafada noocaasa wax lagu saleeyo oo falsafad qariib ka ah islaamka iyo fikirkiisii ah sax waa imaan kartaa laakiin wax kaga maqan gabadha muslimadda haddii la yidhaahdo madax ma noqon kartid wax kaga maqan ma jiro wax kaga maqan lamana xaqirin lamana yasin wax kaga maqanna ma jirto ragayada saxaabadii oo ka karaamo badan oo ka sharaf badan oo ka qiimo badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam iska daayay ha u dhawaanina mas'ala horta waa midaas horta asalka inaan muujiyo waa u baahan qodobka labaad gabadha muslimadda bil ittifaaq bil ijmaac khilaaf la'aan kursiga ugu sareeya muslimiinta ma qaban karto nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam lan yufliha qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan dad taladooda haweenay u dhiibtay waa xadiis fi saxiix al-bukhari ku yaalo gabadha muslimadda ah waxaa fiican inay ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulkiisa u khuduucdo intay sheeko gaala dhageysan lahayd ayna fahamto xikmadda ku jirta haday rabto inay fahamto wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim haddaad mu'mino tahay khiyaar ma lihid ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka inaad qaadato mooyaane khiyaarka ma lihid ama nin aho ama dumar aho xikmadda ku jirta haddaad rabto inaad fahanto xikmadda weyn baa ku jirta kursiga ugu sareeya ma qaban karto wixii ka hooseeya khilaaf baa ku jira culimada dhexdooda hadday isku khilaafsan yihiin qaali ma noqon kartaa wasiir ma noqon kartaa muxuu ahaaye xubin baarlamaan ma noqon kartaa waxayna haddana isku khilaafsanayn jaga kastoy qabanayso waa inay gabadh muslimad ah oo aadaabtii islaamka ilaalinaysa waa inay tahay waxaad marka ii keentaan waqtigan hadda aan joogno gabadh muslimada oo golo baarlamaan intay fadhiisato haddana aadaabteedii islaamka ilaashan karta ma leeli karaa waqtigan hadda joogay sidee tahay adagta wasiirad xafiis intay fadhiisato ummadoo dhan u wada furan yahay haddana nidaamkan hadda jiraay aadaabtii islaamka ilaashan karta halla sheego ma suuroobi karta maya aniga xafiiskan rabaa inaan kugula khalwoodo dan gooniyaan gaale ya ma dhici karto marka way adag tahay xataa culimadii haba isku khilaafsanaadeen wixii ka hooseeya jagada u sarreysa laakiin haddana waxaa meesha ku jira haddiiba laga maarmi waayo war raggiibaa ku kadeedane dumarow baabkani waxba idinkaga maqna wax haba yaraatee sharafoo idinkala maqan yahayna ma jiro xaqiraadna idinkuma aha hawl culus weeye dhib bay idinkala maqan tahay sidaa u fahma
haddii laga maarmi waayo oo ay noqoto qaali bay noqon wasiir bay noqon xubinka meel kale dawladda ka qaban culimada waa isku khilaafsanaad haddana waxaa laazim inay isku khilaafsaneen fi hadhihi alxaala gabadha muslimadda ahkaamta ilaahay u dajiyay inay ilaaliso wabillahi tawfiiq sheekh mustafa su'aal buu soo jeeday sax waa hadduu iyadoo wasiir ah oo dawladda wasiir u ah odaygeedii ku yiraahdo ma baxaysid maxaa la samaynayaa ishkaaliya waa gabadha muslimadda ah waa boqoradii guriga waa shaqo ayna raggu haynin bay haysaa caalimka ayadaa soo saartay oo boqorka ayadaa soo saartay oo mutacallimka ayadaa soo saartay oo professorka ayadaa soo saartay oo nin magaca leh hooyaa soo saartay qiimihii iyo darajadii ay ku lahayd ummadana u joogtay inta laga saaro in mafaahiim kale oo khaldan gabdhaheena laga dhaadhiciyo waa nasiib xumo oo lagu yiraahdo hadiiba jagooyinkiisa aad qaban weydeen waa la idin xaqiray waana aragti falsafadaas waxa weeye aan hadda ka hadlaynay wabillahi tawfiiq جزاه خير شيخ أمل إلهي وحن كبرينا إنه ميزانات حسنات كذا كوسار جوابت هذا كافية مسألة ومسألة في خيار جبر ولا شيء يصود البتي وحن وارك أيجنا قبلها دمر كأني كفاية إستان شيخ أنا جو حاملة سؤال إن شاء الله تعالى وحاسك شيخ أحمد داهر شيخ أنا جو حاملة أيام رمضان كي يقيمت سديت بلوت أيامها أود أما هينين حدنا علمه أيام نجيا إلا أي هذا كي كاله ويوسف صعدا شيخ معاه سمين كرا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا علماء خلاف بدني كليهين يمذاهبته قار قضى كليه كواجبية قار يرى هذا أيضا نفتي أفرتنا قضاء بسيء laga rabaa haday ilmaha u afurtana qada iyo fidya laga rabaa qaar yiraahdo mar walbaba haday afurto ma ilmaha u afurtay qada iyo fidya labada waa laga rabaa aday khilaafaadku ay badan yihiin masaladaas kutubada fiqiga laakiin xaq daliil ahaan waxa ugu cumdaroon قولك ابن عباس ابن عمر كسغنادي وwax khilaaf jirin ilayhiin gabadha murdacada iyo midda nuujinaysa hadaysan soonkii aysan awoodin inay soo qadeeyaan oo sidaan oo kale ay ku dhacdo iska daba nuujis ay tahay waa qof marad musbin oo kala qabo way oo ka reesanay ilaa marka xaaladeedu ay ka bedesho وحاجة علمه أي ككلا دركان أي وقت أي كقضاء أيهش سيدا راجحة ويقودنا يساب بسمنا ساق الله ناس إلى أي هدو أما أي للمضى حاجة كلا دارات وقت أي قضاء كرت أيهش مسا علمه للمضي أي كقضاء أنت حالة دي إساس تهاي وسيدا قف مرض دائما قبل أو كلا marka goormay soo qadlaysaa goormay soo soontaa marka waa iska afure fidya waxa laga rabaa fidyo yani hal mud qof in wixii ku firan cunto ceerin ama cunto bisil wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤال وحي ku socotaa sheekh maxamed abdi umal waa su'aal xogaa naga markaan soo fiirnay waa muhiim inay dadkan ka faa'iideystaan nin ayaa xaaskiisii ku yiri haddii aad guriga food soo geliso guriga aad fooda soo geliso saddex talaaqad ayaad iga furan tahay maxaa xal ah haddii ay gabadha gadaal albaabka u soo gasho waa mid meesha ku jirto oo la rabo in dadkii maartay jazaak allah khayr بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan u maleynayaa masaa'isha noocan oo kale waa naadir aad bay naadir u yihiin maqsuudka hadda uu ka wado uma badna masaladu hadday tahay haddaad fooda soo geliso muxuu ula jeeday waay
qasadkiisu muxuu ahaa hadday soo gasho hadduu ka waday iyo hadduu ka waday haddaad horay u soo gasho laba macnay kala qaadanaysa waxayna u noqonaysaa niyadiisa qasadkiisa ay u noqonaysaa laana hadalkiisu waa hadal muxtamil oo laba macnoba laga fahmi karo labada macno midku ula jeeday niyadiisa xadidaysa marka waa in marka niyadiisa loo noqdo la yiraahdo war maxaad ula jeeday hadduu ula jeeday hadduu yiraahdo waxaan ula jeeday haddaad horay u soo gasho waad furan tahay de marka hadday gadaal u soo gasho ma ka furna sooma laana wuxuu furitaanka ku xidhayba mayna samayn soo saas ma hadduu se ula jeeday waa kelimada Soomaaliga sida loo isticmaalo waa sida ay sax ku too loo isticmaalku yahay haddaad fooda soo geliso haddaad soo gashaa loo isticmaalaa soo saas ma odayaasha kulay naga yaqaan Soomaaliga macnaha hadduu ka wado ama horay iyo madaxa soo geliso ama dabadaba ha soo gashee haddii uu macnaha yahay qasadkiisuna sida ahaa ama uusan midnaba ula jeedina macnaha uu iska itlaaqay saddexda goorna waxay noqonaysaa haddayba soo gasho tacliiqi wuu dhacay uu ku xidhay furitaanka ma furmaysaa mise ma furmayso waa mas'alo fuqahadu ay ku kala aragti bedelan yihiin jumhuurtoodu waxay qabaan iyo badankood shaygii lagu xidhay dalqada hadduu dhaco dalqadii waa dhacaysaa saddex hadduu yidhi laakiin sida raajixa mid baa dhacaysa ra'yi baa jiray imaam axmed uu qabo calayhi raxmatullah oo ibnu taymiya ay rajaxaan oo dhahaya hadduu yidhaahdo waxa haddaad samayso waad iga furanta oo wixii ay samayso furitaan ma noqonayse niyadiisa haddana loo noqonayo waxa la leeyahay war ma inay furantaad ula jeeday qasadkaagu ah mise keliyata shaygan inaad ku caraabisaad rabtay oo ay samayso ama shayga inaad kaga celiso labadaas la kala qaadaya niyadiisa ay leeyihiin oo muxuu ahaay hadduu ula jeeday marka kaga celi ama ku amar oo ku adkay inay samayso ama kaga hor istaag marka waa dhaar oo kale wax dalqada dhici mayso leeyahay imaam axmed sidii dhaar oo kale way lafdigu lafd dalaaq ha noqdo laakiin macnuhu waa macna al-yamiin alfaaduna macaanida la fiiriyay ka alfaad ahaan iyo mabaanidooda lama fiiriyo marka iskhilaafaan ra'yigaasi waa jira waana ra'yi wajiih ah laakiin mas'aladu ama ha furanto way furantay hal yiraahdo inta jumhuur say qabaan ama ma ahe yamiin hal aado iyo dhaar macnaheeda ay qaadanaysaa ma furmayso si la yiraahdaba macnahan horay bay u soo gashay gadaal bay u soo gashay iyo tafsiilkiisu waa sidaas weey billahi tawfiiq jazakallahu khair sheekh su'aalahan waa su'aalo ku saabsan su'aalaha salaada waxaana loo gudbinayaa biidnillaahi azza wa jalla walaalkeen sheekh Abdi Baasid kala hormarsiye ninkan wuxuu leeyahay waxyaalaha sida ugu muhiimsan ee kala adeegayaan soo gudbinaynaa meesha aan ka shaqeeyo amaba iskuulka dhigta ayaaba laga diiday buu leeyahay salaada marka maxaan samayn karayaa ma iskuulkii baan ka tagaa ma shaqadii baan ka tagaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد horta in badan baan ka cudur daartay meeshan inaan soo fadhiisto oo culimada meeshan xaq u leh aniguna runtii sheekhna mihi culimadana kama tirsan marka sheekh sultaan iyo xertiisa ma meeshan runtii hadda afduub igu keentay su'aasha waa su'aal runtii anu mid ma ka jawaabay salaada kama tagi kara calaayad xaal ama iskuulka ka tag ama ka tagi dad ku tukan karto joog laakiin salaada kama tagi karo ruux iskuul baan salaada uga tagayana maqbuul cinda Allahi maaha salaadana wax walba ka ureysan waana rukniga labaad way bacda shahaadateen saadaradeed salaada ruux marna kama tagi karo haddaad marka aad galaas ku tukanayso iyo haddaad si kale u tukanayso iskuul kale raadsanayso aday ku jirtaa laakiin salaada marna kama tagi kartid hadday salaadii iskuulka isku qabtaana ana waxaan oran lahaa iskaga tag iskuulka haddaad xeelad kala weydo oo wax kala weydo culimadaan uga baxaya insha allahu tacaala waa tahay maadaama aysan culimmadu wax ku darsanayn arrintaa kolay badan asagu baan ku celin sheekhan insha allah jazaahu allah khayr sheekh wuxuu ku leeyahay raggan xaaskiga
ma iga jebisaa weysada tan kale haddii naa gaal ah aan meel iskala shaqeyno gacanta ma ka salaami karaya amaba haddii meel xafiis iga soo horbaxdo oo gacanta ii soo dhiibto ma salaami karaya ee waa dhaqan ee waddanka yaalo maya xaaskaagu weysada kaama jabiso naa gaalana haddii gacanta ku soo taagto ma salaami kartid جزاه الله خير شيخ جوابت سيده قاون وبخيه قرخد بدل قف كسو فهمي كرايو شيخ waxaan filayaa sheekadan wixii la socotaa darsiga salaada shalay bixinaysay sheekh wuxuu su'aalkan ku leeyahay salaadaha jaharka ah sida subaxa iyo cishaha faatixada ma la akhrin karaa anigoo ah ma'muun wuxuu ku leeyahay salaadaha jaharka sida subaxa iyo salaadaha cishaha oo kale ee markuu imaamka akhrinayo faatixada anigana ma akhrin karaya faatixada buu ku leeyahay ninka sheekh faatixadu waa rukni weeyaan waa rukn min arkaan salaah saa daraaddeed darsiga markii aan bixinaynayna waan sheegnay culimmada qaar leh la akhriyi maayo waan sheegnay laakiin sujuudda iyo rukuucda iyo ictidaalka iyo faatixadu intuba waa rukni kama tegi kartid marka kama tegi kartid faatixada inaad akhrido wey جزاه الله خير شيخنا waxaan u gudbayaa su'aal koleba sheekh Mustafa Xaji Ismaaciil ayaa su'aashan iska leh su'aalihii kalena koleba asagaas uu ka sii jawaab insha Allah taala sheekhna saa'ilkan wuxuu leeyahay adiga haddii aad geeriyooto adiga haddii aad geeriyoodo asagoon xaaska siin meherka sida aabbayaasheenii oo kale aanan ka warhayn maxaan samayn karaa aniga xaaskayga way geeriyootay maanan siin meherka su'aalahan dad badan ayaa ila qaba ama raba inay ogaadaan ee fadlan sheekh jawaab naga sii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan moodaya anigu su'aalaha intayda inaan haysto laakiin xabaddaa haddaan ku daro haddii odaygu geeriyoodo iyadoo meherka lagu leeyahay waa dayn lagu leeyay sidii deymaha loola dhaqmayay ayaa loola dhaqmayaa intaan xoolaha la dhaxal marka laga tajiisiyo wixii ka dambeeya marka la aaso wixii ka dambeeya intaan dhaxal iyo wax kale la soo qaadin baa deynta la bixiyaa marka wuxuu meherkaas ka mid yahay deyntii lagu lahaa waa in la siiyaa dhaxal ma galo ee waa deyn waa la siinayaa qofkii lahaa deynta waa la siinayaa xaaskaygii baa dhintay meherkii maan siinin dee waa xoolahay ka dhimatay kalun buu la xukunyay hadday xoolo lahayd ama dahab ka tagtay ama wax ka tagtay wixii kale ay ka tagtay ciddii dhexlaysay unbaa dhexlaysa dabeetana kuwa unbuu la xukumiyo waa xoolo ayadu lahayd جزاك الله خير شيخ تي waxaan filayaa su'aalaha inaad haystin iska sii dhameystirto جزاك الله خير su-aashani waxay sheegaysaa dembiga cuquuqul waalideynkan ku dhacay maxaa yeela waxaynu ka soo hadalnay birri waalideyn iyo labada waalid in loo samafalo iyo in la caasiyo dhibta ay leedahay ilaahayna ha u toobad keeno subxaanahu wa tacaala labadiisii waalidna ha raalli geliyo hadday dhinteenna ha u samafalo wax allaaliya wixii samafal ah ee uu samayn karo sadaqa ha noqoto duco ilaahay u barya ha noqoto dadkii ay xidhiidhin jireen uu xidhiidhiya ha noqoto haddaanay xajin inuu ka xajo ha noqoto wax allaaliya wixii khayr ee uu samayn karayo ha u sameeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala toobad ha ula yimaado dembi dhaafa weydiisto su-aashan iyadoo iska faduuli dayaxa ma la tegi karaa ama se dayax xaguu ku yaalla maxaa kaa saaran adiga wax badan oo dayaxayna igaga jira inaanay jirin baan u malaynayaa walaqad zayanna samaa dunya bimasaabiix culamadu waxay yidhahdaan waxaan inoo muuqdo oo dhammi way ka sokeeyaan samaa dunyaha waxaanay u yihiin wax lagu qurxiyey
ma la tegi karaa mise lama tegi karo ilaahay baa garanaya su-aashani waxay ku saabsan tahay meher shardiga waad bannaysay buu yidhi waxaa tidhi waa bannaanyey malaa mutcadii buu u jeedaa miya waad mamnuucday buu leeyahay calaa kulli xaal su-aasha yaa markii hore mamnuucay yaa markii dambe banneeyey buu leeyahay sharciga islaamiga yaa wax mamnuuca yaase wax banneeya khalaas يعني نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة دي لو سو ديبي أيا إنه شيكتا مركو هراء وح ممنوعة إيا محي وحبنان وقت جه هراء الإسلام كوسود دقي وحيابه ونبغو فالصحيبة شرودتكو سميني كدبنا وحي الدنبه وكدب يمي أولا نسخي منسوخة مثل خمر جواجي هراء ولا عبي شري صحابة شنية توسنا ضد بعبي شيء شنية توسنا كدب بسود دقي آيات كشيء إنه محي هي حرام إنه يهولك التغيير متعة هداد وجهده مركي هو النبي عليه الصلاة والسلام وفصحي مركي دنبنا وممنوعي ممنوع عصان الرسمية إن قالوا أن وحده ديجان شرني محددين كرا واحد كحددين اسمه كحدانته هداد خير كحددين يسي وراك وبنات هاي هداد شر هي باطل حددين سنة ما بنانا waxaan maqlaa 4 imaam ee say u kala horeeyay أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة ayaa ugu horeeyay إمام مالك baa ku xigay إمام مالك أردgiisu شافعي buu ahaa شافعيna أردgiisu أحمد buu ahaa saasay u kala dambeeyeen لكن wuxuu leeyahay waxaan jeclahay culimada inaan isla sawiro oo nimanaanu saaxiibanahay ayaa gaalada sawirkooda qaatay oo ku dhajistay guryaha anna waxaan rabaa wadaadada intaan jecelahay inaan guriga sudho maxay kula tahay buu leeyahay gaaladii hore quraanku ka warramay ee asnaamta ay caabudeen waxa la yidhi marka hore dad saalixiina bay haayeen dabeetana waxa dadku isweydiiyay war nimankii saalixiinta ee wanaagsanaa naga dhitaan xasuusanay sawir yaraan u samayno wadaad ba dhagax yar baa laga qoray sawirkii muddo yaalay kuwii hore dhintay ee ogaa in dhagxanta tani ay ahayd in wax lagu xasuusto sidii loo kala dhaxlay kuwa danba yimi oo sawiradii caabuday walidaalika baa suuratu nuux asnaamtan ku qoran ee ilaahay quraanka kaga warramaya culimadu waxay ku tilmaamaan inay ahaayeen dad saalixiina marka sawirku noociyadkaasi ma banaana sawirka in dani kuu geyso ama waxaad uga baahata mooyaane in la isticmaalo maaha inay iska daysaan baa ka roon wadaadna isaga hadalkiisa badaa su-aashan ku xigtaa waxay leedahay nin laba gaal dhaleen oo indhala oo dhegala diinta saan ugu sheegi karaynaa oo waliba wuxuu leeyahay khamriga iyo khasiirka inuu iska daayo khamriga iyo khasiirka tawxiidka ka horeeye haddii uu jiro usluub uun loola xidhiidha ama tayninkii ahaado sawiradii ama kan faraha laysku qaab uun wuxuu fahmi karaa hadday jirto dee qaabku wuxuu fahmayaa loogu sharxaya qaabku wuxuu fahmayo haddii kalena kuwa aakhiro la imtixaamayo ayuunba ku biiri doonaa bay la tahay su-aashiisa labaad waxay sheegaysaa berigii hore waxaan ku riyoodo maalintii baan arki jiray iminka se waa guurtaye maxaan sameeyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa sidaa u kala runsheeg badantiin ayaa maxay riyadiinnuna u kala runsheeg badantahay daahirkeeda loo arkaa haddii daad salaada waad qalqalloocatay qalqallooca jooji oo dib u wardiyo ilaahay ka cabso qasabna maaha inaad riyootaaba marka hore inaad aragto markaad riyootaana iyana qasab maaha waa lacalla in lagu itixaamayaba waa iska dhici kartaa aad istiri waxbaad nala isku ogaatay markaad waxoogaa riyootay aragtay inaanad riyoonin waxba kaama xuma laakiin waxaa wax ku xumaadaan inaad beddeshay wanaaggii aad samayn jirtay ama cibaadaad ha noqoto ama alla xuskii ha noqoto ama waxaa kuwa haddaad wax ka beddeshay dembiilaa tahay dee ka noqo su-aashani waxay leedahay war wadaaddow ma waxaad rabtaan inaan xukuntaan xukunkaad doonaysaan xukunka waa kii sheekh maxamed ka hadlayay
يعني meel lagu degdega maaha meel la raadceeyana maaha waa qof imtixaankii haystay ka badan u banbaxay basharka ilaahay tirada badan la in aakhire lagu weydiiyo wixii ka xumaaday iyo wixii uu hagaagay iyo wax walba in adiga lagu weydiiyo aakhire qifuhum waxa la leeyahay dadka joojiya qof walba waa maxay waa mas'uul waa la weydiinaya qofkii raba su'aal inuu badsado oo ilaahay su'aalo badan inuu ku weydiiyo madaxnimo raadi dad rabto su'aalo aakhire lagu weydiinayo rabbi markuu ku itixaamayo in su'aalo aad u badan lagu weydiiyo madaxnimo doono haddaad rabto su'aasha aakhire inay kaa yaraatana mas'uuliyadka iskaga carar xabaha raadin wadaadka iyo markay timaado ninka kale qolada kale yaa u qoray iyagu inay madax noqoto wadaadkana ka dhaariyay yani masharca jira odhanaya ninka wadaadkii madax ma noqon karo ninkii isku kaaja ama wabiina ama salaadiisa iska tukada aan wadaad ahayna madax buu noqon karaa sharcankaasi ma jira asalku waxa weeyaan dadka muslimiinta ahi qofkay doortaan ee sharcigooda ku doortaan baa madax u noqda hada huwa al-asl qasab iyo xoogtoona ma jiro waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan waxa weeyaan nin kastaaba meeshan ha fuule maxaa la isku xukumaya maxaa la isku maamulaya haddaad ogashay rabbi tiisa in la isku maamulana ciddii kasta ee meesha fuusheeg kitaabka rabbi ku xukumaysa ha la raaco haddii ay waxa laga cararayaa tahay ilaahay kitaabkiisana in lagu gaaloobay u dhowday waxa laga cararayaa in la isku xukumo hadduu yahay ilaahay kitaabkiisa quraanka iyo sunnada nusuusta ku soo aroortay waxay u dhowdahay in lagu gaaloobo ka waxaan idin leeyahay asalku waxa weeyaan salaamada asalku waa salaama غنيمة inaad heli doonto garan maysa asalku waa salaama asalku waa inaad iska dayso madaxnimo iyo waxa la xidhiidho oo dhan waa inaad qaadato waanada uu nabi maxamed saxaabadiisii uu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa ka nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhira inay tahay khizyun wa nadaama adduunya aakhiraba idan madaxnimo waagan dambe waxa qure loogu cararaan idin sheegaya waa tuuganimo la wada raadinaya inta ugu badan leh xoolo bilaashun baa la doonaya ninku markuu madax noqdo maxaa u bannaan xoolo agoomeed inta kaaga bannaan baa kaaga bannaan haddii aad ka maarmi kartana inaad iska bedaysaabaa ka roon abubakar intuu muslimiinta madax u noqday baanu waxba qaadan markay arkeen isagoo suuqa haddana yara baac mushtareen wadwada bay yidhahdeen waad ka mashquulaysaaye markaasay u qoreen waxoogaa neef badhkii in la siiyo waxaan ugu weynay madaxnimada loogu cararaya waa in dadka la boobo oo la dhaco waxaad qiyaastaa cashuurtu shareecada islaamiga ah cashuurtu waxay ahaan jirtay wax gaalada muslimiinta ka qaadi jirtay tujaarta muslimiinta markay dhulka xarbiga tagaan ayaa cashuur laga qaadi jiray dabeetana a'imadii muslimiinta waxay soo rogeen iyaguna tujaartoodu markay yimaadaan in cashuur laga qaado ama muslimka caadiga zaka iyo wax la mid iyo waxaasaa laga qaadi jiray cashuur lagama qaadi jirin waxaad qiyaastaa cashuur dulmiya oo laga soo qaaday waxa dad waddanka degan oo dhan mise waxay is leedahin qoladiinan meelahan degan baa la cashuura kuwa lama cashuuro waa la cashuuraa qof kasta maalan ninka maanta soomaaliya jooga ka soo qaad koob shaaha markaad cabto dowladda cashuur baad siisa waayo koobka shaah madow waa la soo dejiyey ninkii keenay ee baac mushtarkaa dowladdu way cashuurtay cashuurtu isagu kharash buu ka dhigay kharashkii buu xisaabiyey haddii jawaankan sokora laga soo siiyey $20 oo dowladduna 10 ku cashuurtay wuxuu odhanayaa jawaankani $30 buu igu jiraa igu joogaa markaasuu faa'iido saaray $10 yay saaran yihiin dadkan shaaha cabaya markaad koob shaaha cabtaba dowladdu mid bay cabtay horta ilaa shaahi madoobaa bay cashuurtay oo sokortii bay cashuurtay oo biyo bay cashuurtay oo daartii bay cashuurtay oo shaqaale baa wixii oo dhan bay cashuurtay koob markaad cabtaba koob bay cabtay bal aakhira waxaad qiyaastaa inta ummadoo dhamaysa soo taagtay inay ilaahay ilaahu kani wax yagii buu cunay oo dadka u qaybqaybiyey ilaa koob markaad cabtay oo koob bay cabtay khalqiga soomaaloo dham intaysa soo taagto bal ninkay u qabsato aduu ka waran la ilaahay ilaahu xoolahan leenu qaato adigu ama siisii cid kale ama ku bixi adaa ka qaaday adaa madax u ahaa idan meeshu meel lagu dheereeyo ma aha wax la raadceeyo waxa quree la raadcayn kara waa in la yidhaahdo madaxay dadka ilaahay kitaabkiisa ku xukuma kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku xukuma
su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan gaal baa wuxuu igula doodayaa buu leeyahay idinku muwaxidiin ma tihidin oo ilaahay keligii ma caabudaan waayo markaad tukanaysaan dhagaxa xaggiisa u jeesataan kacbadu waa dhagax waa daar yar waa qol daara xajarul aswadkuna daartaasuu rukun yar kaga sii jira qolkaa yar waxaa laynooga dhigay jiho aynu u jeesanno oo salaada u noqda qibla laakiin waxna ma tarto waxna ma dhinto suusaa ma ogidin daartu waxna ma tarto cumar bin khadaab baa intuu xajarul aswadka dhunkaday buu wuxuu yidhi waxaan ku ogahay inaad dhagax tahay oo aanad waxna tarin waxna yeeli karin laakiin wuxuu ma arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dhunkanaya dabeetana ta'asiyan birasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalam ayuu masaatan u sameeyey idan kacbadu waa qibla bay dadka u tahay salaadun baa la yidhi si dhankaa u jeesta ee qofka muslimkii kacbana ma caabudo bal ee nebi maxamed ma caabudo calayhi salaatu wasalaam wuxuu caabudaayo qura maxay alle subxaana wa tacaala idan dadka muslimiintii waa muwaxidiin waxay caabudaan rabbi oo keliya waxaan ka soo hadhaad sheegaysana waa falsafa saa'ilkanina wuxuu leeyahay shalayto waxaa laga fahmay dadka internetka qaar ka midi muxaadaradaadii inaad lahayd heestaa bannaan af soomaaligu waa mergi hees maxaa la yidhaahdaa luqadii soomaaliyeed ee rasmiga ahaa wax muuse ku jiro hees lo odhan jiray anigu ma maqal berigay waxa kani soo baxeen wuu balweynayaa hebel baa la odhan jiray balwo iyo wax kale lagu tilmaamay qoladan wadata muusigan iyo waxa kan asalka soomaalidu hees waxay u yaqaaneen ama cayaartoodii soomaaliga ay ciyaari jireen waxay akhri jireen ama hees xoolaadii xoolaha marka la waraabinayo marka la kaxaynayo marka la daajinayo marka la rarayo awrka marka la furayo waxa la akhriyo warkaasoo dhan isku soo dar muusiga waa kii sheekhu ka hadlay muusiga halka iska dhig maxaa soo hadhay midhihii baa soo hadhay soo maaha la odhanayay wixii isjejabisa iyo dumar waan ku jeclaya oo kuma jeclidanayana halka iska dhig waxaa soo hadhay wixii hadal ah ee ama gabay ah ama midho suugaan oo heesa ah xukumkeedu waa waxay ka hadlayaan hadalka kaluu markaa la mid yahay hadday waxay ka hadlaysaa wax xun uu yahay laba reeroo la isku darayo dad la caayayo hadday waxaa tahay waa dembi hadday xoolaha mid lagu daajisanayo tahay oo geela lagu caraabisanayo oo awrka lagu furanayo oo aqalka lagu dhisanayo maaha dembi oo carruurta lagu seexinayo oo caanaa lagu lulanayo oo waxay soomaalidu qaban jirtay hadduu yahay islaanta haanteeda iska lulanaysa ee u heesaysaa dembi maaha laakiin mushkiladda waxa weeyaan haddaan idhaahdo hees baa la ogolaya markiiba waxaad la soo boodaysaa bob marley tuu qaadi jiray iyo maxay iyo kuwa kale waxay qaadi jireen waxa muusigu la socdo dhan waa siduu sheekhu idin sheegay haddii carabkaygaba ay ka soo baxday anigu maba garanaye waxaan u jeedaa un midhaha caadiga ee la tiriya ama gabaya ama midha ah haddii aan khunuuso kale iyo afxumo kale iyo isjejabis kale aanu ku jirin ee hawl lagu qabsanayo waa rifqankuu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii codka macanaaye awrka waday dumarku fuushanaayeen ee dabeetana geelu codka uu yaqaanaa heestana wuu dhegaystaa soo saa ma taqaaniin ee intuu geelii waday u heesay dabeetana uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir oo socodka uu dheereeyey neefkii uu waday uu u heesayey masalada ugu dambaysa aan ku gabagabaynaya intaydu waxay tahay ninbaa wuxuu leeyahay waxbarashaan ku jira 60% ayay hay-ad iga bixisay 40% waxa laygu yidhi waa dayn sheekh marriba buu leeyahay dayn dee aan waxba cidi hadhow ku saaraynin oo interest la soconin oo ilaahay dartii lagu daymiyey hadday tahay dembi kuma jiro haddayse tii aynu garanaynay tahay oo dee hadhow interest lagu saarayo 90% haddii lagaa daayo 10kaasi waa ribo soo hadhay haddii ay tahay maxay interest hadduu daba socdo lagu weydiinayo wallahu aclam billahi towfiiq جزاه الله خير شيخنا شيخ مصطفى حاج اسماعيل إلهي وحن كبرينا جوابها وافقة إنه إلهي ميزانات حسنات كسارو ولعل الوقت قوير وحن سكود دينا إن يرو سؤالين إذا كان أنسي دمسترنو وقت قانون مسامح حين أنت كاله سؤاشا وسؤال صلاة وحن كسعتا شيخ عبد باس بي كسعتا واحد نجا جاهل بحساب الشيخ وحن أرجني
dad dhahayo marka salaada laga baxo in la duceysto waa bidco marka taa maxay diinta ka qabtaa buu ku leeyahay sa'ilka sheekh adigu بسم الله الرحمن الرحيم شيخ أن كان نسيه وحوجه مسألة مد بدعاء ويجرتايو صلاة واجب كامرك لقى بحو إن إمامك دعايو ضدكنا آمين يرهدان بدا سوى بدعو نبي محمد مصمين صلوات ربي والسلام عليه صحابة دي سينا مصمين saddexdii qarni iyo aymadii waaweynaana lagama hayo waa wax xilli dambe oo wadaado oo la yimaadeen taana waa bidcadii nabigu yiri iska ilaaliya iyaakum muhdathaati al-umur iska jira uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam hadduu khayr ku jirana nabiga jidayn lahaa sooma midda labaadi wax weeyaan inuu ruuxu iska ducaysto salaada markuu ka baxo salaada gadaasheeda adkaarta waa duco sideedu دعاء بدن باكو جرت دعاء فر بدن باكو جرت أذكرت صلاة كدم بيس كوا هذي تهاي لا مانع كعنت أدون تاجين بعد أذكرت آخر سنة يسوون الدعاء كو جرت هذا دوني سدعوين كلا صلاة قداش يدينا دعاء ستو أو يعني وحويان أضربتوين الله توكتو هل لازمين مر دعاء سو مر نسكده حيال ماشاس أذكرت صاء رتب النبي يقول لازم يشري صلى الله عليه وسلم أما واحد أذكرت كسيات سن إنه لازم يشري مسوا أرورين مرة ضي سيدا استهاي مركز أبوها هنتا هنا الدعيسو مركي كلام إسكده واحد لازم وصلنا أهو ماشى كسوا أرورون لقيت تكرنا كدين وبالله التوفيق تفضل وحي روحان أضيف هنا جزاه الله خير شيخ الدعاء الصلاة يكجرت لكن وبعد التحيات markii nabigu yiri calayhi salaatu taxiyaadka oo baray oo yiri wali takhayir min ad-du'a ma sha ducooyinkiisana waxa kamid ahaa ducadii Abu Bakar oo maray oo baray Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant waghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim iyo ducadii Ammar ibn Yasir oo nabiga ka soo koobiyay اللهم إني أسألك اللهم علم الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي مركز صلاة الدعاء كجرتا لكن دعاء وبين التحيات وبين السلام أيضا ينكو هبونتا يسوتو عقب الصلاة اللي عقب الصلاة نحوي صلاة دي أركانتي دي بدنكي دي التحيات كسو دماتي سلامتا انت ان لقارن قفكي صلاة كل حجرة ووقت دعاء لا أجيبها مركا وقت قاس إن للدعاء وقت قاس أرورتي أما ضدك مركا قضالي أرارين تين مهمة سينايان ندعي مدة صلاة كل حجرته وقدم بيو خالص قال ربي إن حوق لسي مركي أو صلاة لقبح أذكاره حافظ بن حجر وبحثي بل وحو اسكو دي بعد الصلاة ودعوين سواء أروري أذكارتهم بوكيني وحكا لما أوسنه لبحثك مركو ماشا أكسمي مركو دعوة جرتان لكن وبين التحيات وبين إيش السلام تاسع لنكو قادم دعاء ماشا أكو جرت برتا أيضا أقومهم سن وأنا وقت قفك الصلاة آخر كجرو الصلاة ظاهري أو ألا أدوي هاي وقت قاسي مستجابة أدوي مركا الأذكار لغو كميلا يواي مركا وصلاة لغو كميلا يو نقص قيدي يوحد إكاقل لغو كميلا يواي والله أعلم شيخ سؤال أيضا يودينين كنتي أشياء إذا علماء أيضا يودينين أو الله حرير هذا السؤال عشان أي لوضع شيخ نوجو جوابين جزاه الله خير ودتكينا إن بدن حتى أنت عندي لا شغني أن كوار كي باجرتي يدنا وبراروجين وبهن مسألة سواء حويان روح بكل جيتو عيسان يا حاجة دمبو فرديا تبتورنا وحسكم مصحية كعبة وكنا مستو وحسكم مصحية لوضع قعمات برضو كان يعني له صار يا لو قرب بان قرنتي أنت عندي لا شغني
masaladana sida sheekh maxamed sheegay haddii uu khayr ku jiro oo ilaahay loogu dhowaanayo oo in uu khayr ku jiro nebi maxamed baa samayn lahaa sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna lagama hayo waxaan nebi maxamed laga hayna diinta ka mid maaha jazaakum allahu khayra جزاهم الله خير علماء خالقة جزاهم الله خيرا مركله واسرعسين لما سؤال يرى وصلاة الصبح وهذا إن شاء الله تعالى وكل ما الشيخ الشيخ عباس مرواينا وقد بيانك صلاة الصبح ما لينك الروحي يراد هرد أي إجتكتي خيلنا كدكتو كوسي السعودة مركا ويتسندي هذا هرد كوشاكتو تاديتو محيك قبتا وكو طلوات شيخ waxa ku jirta mid kale ah raggan marka salaada la xirinayo rafaca salaata takbiirta dhahayo nabaytu usalli farla salati al-asr 4 rak'at Allahu akbar taani diinteena maxay ka qabtaa jazakumullahu khair bismillahir rahmanir rahim horta salaada subax iyo ka tagideeda ninkaasi ismi weyn buu ku dhacay wadax xun oo wadadii jahannamana lagu tusaa toobana waa u baahan yahay ninka zinaysta ee khamriga caba ayaana ka fadli badan ee salaada subax tukada ninka ka fadli badan ismi la sameeyay ismi ugu weynaana waa ku dhacay inuu caado ka dhigto salaada subax inuu ka tago khaasatan intuu habeenkii oo dhan soo jeedo oo balaayo ku soo jeedo ama wax kale ku soo jeedo oo salaadu markay soo dhawaato uu seexdo wax cududaara kuma lihid markaa inay salaadu kaa tagto salaadu tabaabushays bay u baahantay laakiin aan waxaan isleeyahay inta badan dadka salaada subax waxay uga tagtaa waa bisababi dunuubihim xasan albasri ayaa nin u yimid wuxuu yidhi xasan albasri maalin walba weysadaan biistaa waxaan damcaa habeenkii inaan kaco ma hadda salaad subax waan isku dayey muddo fara badan baan isku dayey waana ii suurtogeli weyd fama dawadu maxay tahay wuxuu ku yidhi kabaladka dunuubuka waxaa ku garbaduubay oo ku xidhxidhay oo ku qufulay ood la kici laadahay waa dunuubtaadi laa tacsihi fi nahaar ilaahay maalintii ha caasiin buu wuxuu ku oggolaanaya habeenkii inaad hor istaagto أنا waxaan oran lahaa ruuxaasi wixii ka tagayna ilaahay uga toobad keeno masaladaasina waa mas'ala aad u khatiira aad iyo aad u khatiira halkaas aan taa kaga baxaya masaladan ku xigta oo ah usalli farda salaati dhuhri 4 ragcatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar maxay diintu ka qabtaa horta salaada waxay ku bilaabataa Allahu akbar bay ku bilaabataa wixii ka horeeyay ruuxani uu akhriyay waa hadal isagu iska akhriyo isagu baa iska sheekeynay وانا بدعو دينتنا كمد ما نبينا كما سنة صلى الله عليه وسلم شيخ البايرين هدي الشيخ أن قدمين له لها علماء ضد أنبياء نقول الله حطات هذا إمام هبل باقبة فقط وما قدمه النبي نبى واسكت الماء بس شيخه مركا مسألة سنة ومسألة بدعاء إن بدنا الجوع العلي ما بنانا روح إنه أصلي فرض صلاة الظهر إنه يرى هذا ما بنانا صلاة الله أكبر بيكون حرنتا السلام عليكم ما ارتوى والو حلال وباء ولا قبحة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ عبد الباسط سؤاشا وشيخنا شيخ عبد الله ملوي سايشا وحي leedahay marka wadanka soo galay oo sharciga leeysiiyay waxa leeysiiyay lacag guri dhigashaa okay maan garanayn bay leedahay inay rabaheed laakiin kadib waxaan ogaanay in lacagtii rabaheed haddana waan ku dhex jirnaa oo ku dabaalanaynaa maxaan sameeynaa sheekhu بسم الله الرحمن الرحيم markaan wadanka imid waxa la siiyay lacag riba ah bimacna yani la jilciyaan u baahnay taqriiban maxaa laga wadaa macaqdi bay gashay ma muaamalay gashay oo riba ku soo raacday ma deyn bay qaadato ku soo raacday ribadu ku soo raacday mise waxay ka wadaa uun lacagahan dawladda ee la siinayo maxaa laga wadaa bal jilciya
صح يعني waa dayn bay ku timid marka يعني lacagta lagu sii siiyay waa lacag lagu sii daymiyay oo hadhowna intii lagu siiyay iyadoo ka badan aad celinayso waa marka waa riba iska cad waxba lama saaro miya labadaba anaa idiin sheegi waxbaa degdegina iska tartiibsada haddaan waxba la idin saarin haddaan lacagta inta la idin siiyey intifaacsateen waxba aan la idin saarin dee ribo ma aha iyadiin baad celisay ama laga ceshado ama ha lagu daayo dhinaca uun qaadashadeedii xaggee ka soo jeeda ay meesheeda way laakiin dhankaa dhib ma leh hadday noqoto sida dad kale ay u dhigeen qolana ay farta u taagtaageen in lacagtii lagaa ceshanayo iyadoo siyaado wadatana markaasi waa ribo waa dayn wadata muxuu ahay dulsaar wadata waay ama dawladdu ha ku daymiso ama hay-ad ha ku daymiso laanna ribada dawladdu inay dadka ribo kula mucaamalooto waa xaaraan sida shirkadaaba xaaraan uga tahay afraadda hadday ribo tahay oo aad samaysay oo caqdigii dhacay oo uu kugu tegay ood isticmaashay maxaa xal ah dee haddaadan ogeynna dembi maaha haddaabaad jaahil ka ahayd jaahil ilaahay tabaaraka wa tacala waxba uma qabto hadduusan markaa uusan ahayn mufarid ahayn ya adugu waan soo wadaa idinku tafaasiisha kala baxa warkiina haddaadan ogeyn meesheeda waay haddaad ogeyd ood qaadatay marka waxay ku xidhan tahay ma mudar baad ahayd oo daruura kuu haysay oo meel kalood uga leexan karta ma jirin mise xal kale aad heli kartay xal kalood kaga baaqsatay haddaad heli kartay inaad qaadato xaaraan bay ahayd si kalood uga baaqsatay haddayn helin nolol kalena ayna kuu suroobi karin oo xaddu daruura ay gaadhsiisan tahayna markaa waa baab kale waay laakiin laba gooraba akhi masaa'isha noocaas oo kalea culimmadiinna ula noqda maxaa khaldan hadda su-aalaha ugu badan ee nala soo weydiiye waxaa ka mid ah hilibka maxaa xalaala maxaa xaraama intiinaa meesha fadhida haddii hilibka qaabka loo gowraca laydin weydiiyo midba sibuu u sheegay soo ma mucaamalaadka nin walba intuu ka ogyahay buu ka sheegaya marka aad haysugu lugoynina in aad adigu sida aad ka aragtay lagugu waafaqo ninba sibuu u fahansan yahay sina wuu ka arkay المهم waxa weeye waxaad raalli walaal khayr Allah ku siiya raalli waxaad samaysaan muxuu ahaayay haddii wixii aad ogeyd aadna ka leexan kartay ka toobadkeen oo ilaahay dambi dhaaf weydiiso tabaaraka wa tacaala haddii wixii waxaad hadda wax ka qaban karta ma aha waa caqdi dhammaaday waa wax dhacay waa waxaad qaadatay waa wax tegey toobad buu u baahan yahay inaad ilaahay uga toobad keento ka soo noqoto haddii wixii waxaad og tahayna uu ahaa sidaana aad ku qaadatay si kalood kaga baaqsan kartana ay jirtay waa ismi marka loo baahan inaad ka toobad keento billahi tawfiiq جزاه الله خير شيخ هل سؤال بان كدرينا وقدم بيسو ان شاء الله تعالى كدب الموضوع كلا يسي كلينا وسؤاشنا وحي كسوعتا ولكن شيخ احمد داهر شيخنا خير الله يسي جزاه الله خير شيخ احمد داهر سائل كان وسؤال هلكا كجرتي waxaa is weydiinaya wuxuu yiri xaaska baa ka soo tagay oo wadinkii baa kaga soo tagay halka baa dhibaaday oo wali sharci leeyma siin oo waxaan doonayaa gabadheena halka keeno arintiina way ugu culus tahay waxaan doonayaa gabar kale inaan halka ku guursado si aan shahwadeeda u celiyo taa maxaa iglo talan laheedoon oo maxaana ka sameyn lahaa wajazaakum allah khayra qofka hadduu guur u baahdo oo shahwada uu maaragtay xalaal u baahdo
qof waa guursan karaa oo xaaraan ku dhacda dhihin maayo laakiin qofku ka soo tegay waa inuu weydiiyo inay mutadarriro tahay oo dhibtoonayso oo iyo inaysan dhibtoonin u sabri karo adiga dhibka ku haya iyadana haya marka qofkii la tasho waxaa tiraahdaa duruuftaasaa jirta xaqaagii waa kala maqanay wixinoo ii suurtoobi la'yihiin anigu waa dhibtooday isma celi karo adiga marka ma isugaysaa gabdhuhu waa kala duwan yihiin mase adigana maaragtay maadaama aan kala xabisannahay khiyaarkaagaan ku siiya kolle qof reerkeeda jecel hadday taa adkaysana karta waa uun dooranaysa soo maaha wakhtiga ugu horeeya oo fursad helana ama ha u tago ama ha keensado laakiin qofkaas laftiisa siduu asaga tiisa u tixgelinayo qofkaa wax ugu darsan yihiin waa inuu tixgeliyo wallaahu aclam جزا الله إلهي علماء ماركي أباليو ميزانك وذا حسنات كلا الله صار سبحانه وتعالى إنك أنا دقدتك خير كما قال ويليانا كنا دقما